walaalayaal maanta halkan waa golaha murtida iyo wacyigelinta waxaa isugu yimid golihii abwaanada oo dhan oo aan kala maqnayn haddii alla ku roon yahay waxa isu keenana waa dhibaatada maanta ka jirta geyigeenna iyo dadka ehelka ee isdilaya ee Soomaaliyeed abwaanadu maanta halkan inay ka gabyaan ama ka heesaan ama ka geeraraan ama haddii alla ku roon yahay uma imaanin sababtoo ah Soomaaliya hadday war qaadanayso qabyaalad iyo xumaanteeda iyo qurunka ay isku dilayaan horaa loogu soo sheegay abwaana wuxuu yiri bayrkii kaare waa ninkii qalay walaalkiis mid kale wuxuu yiri gacantii nin lii goynaya waa gumudata mid kale wuxuu yiri nin walaalkii geed ugu jira geesi noqon waa mid kale wuxuu yiri nin walaalkii doondoonaya luuma kari waa mid kale wuxuu yiri qab dhaafayay laba qabiil qaran ku weyda mid kale wuxuu yiri dugsi mala qabyaaladii waxay dumaysa mooyaan mid kale wuxuu yiri qabyaalada waa lagu ciloobaa qabyaalada waa lagu ciryaama marka mid aan ka hadlin abwaan Soomaaliyeed ee qabyaalada xumaanteeda ka hadlin haba yaraatee ma jiro ilaahayna wuxuu la yiri wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu waxaan ka dhignay shucuub iyo qabaa'ilo si aad isugu garatiin laakiin anagu waxaan ka dhignay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litaqaatalu ilaahay muxuu yiri litacaarafu annaguna waxaan ka dhignay litaqaatalu marka dad amarkii ilaahay diiday waliba ilaahay wuxuu sii daba dhigay inna akramakum cindallahi atqaakum waxaad u kala fiicantii si aad cibaadada rabbi ugu kala fiicantii wax kale ku kala fiicantii laba yaraatee ma jira marka haddii alla ku reey Soomaali war horaa looga daalay qabiilka ilaahay yaa ka dhigay qadartii ilaahay in la isku dilo oo qofka la yiraahdo reer hebel maxaa ilaahay kaaga dhigay wax la qaadan kara ma qowmiyada guud iyo qabiilkaad ka dhalatiyo qoyskaad ka sii tahay qadar eeba weeye qasax iyo qaroon iyo reer quraac in laga dhigo ma qof doortay baa jira qof doortay qabiilka ilaahay ka dhigay miyaa jira haddii lagu dilo soo dhibaato ma maxaa la isku qoonsaday dambi waa qofkii galay qabiil ma dambigu qofka gala ayaa mas'uulka marka uma aanan imaan saaka inaan gabayno waana qaadamaysiin waa lagu soo daalay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haddaad isbaabaysiin ee dhulku bannaanaado dad u baahanaa jira oo soo degaya deris waxaa nala ah 150 milyan dad ah oo bad iyo berri ay degaan u baahan haddaad isdhamaysaan ayagaa soo degaya haddii alla ku rooyo qarni ka horeeya ee markii abwaanka Soomaaliyeed uu lahay dadka kama yaraateena way isdabar jaraysaa marka waana laguma dhimana war kuma dhimana abwaanka Soomaaliyeed maanta halkaasay fadhiyaan caladoodii soo bandhigayaan qaara waxay taagan yihiin ha israacdo diiday ha israabsateeda sababtoo war waa diideen waana qaadan maayaan nin walba walaalkiisu dilaya inta isdilaysa waa inta deriska ah ee sokeeyaha ah ee xididka iyo xigaalada ee abti iyo adeerka u fiirsada ilaahay iyo rasuulkiisu waxay sheegeen haddii alla ku roon yahay saddex xaq inay isku leeyihiin dadka deriska ah muslimka ah ee haddii alla ku roon yahay ehelka ah inta isdilaysa waa saddexdii inta isdilaysa waa deriskii ehelkii muslimkii marka waana laguma dhimana warna laguma harin waa dulla qabyaaladu waa furuq iyo daacuun waa cadow difaac iyo dugsi aad ka dhigato kaadoo xamaatada waa nacabdnimada iyo sharafta kaala dirino ummadaada kugu dira waa durbaan ibliis oo daacad aad u tahay oo aad ka daba adlaysaa waa kaan kala duqowdiyo jahli deegta loo suran ummaday la derisana labada waa u diidaa damiirka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa calanka waa ka dirtaa aakhirada dabnaar iyo jahanabay ku galaqsiin sahal adwaashida leen horta rag bii hadlay si fiican bay u hadleen laakiin allawaaniya waasan baa leeyahay waxaan rabaa Soomaaliya dagaalamaysa meel kasta ha ku dirireene horta marka hore 4 boqol quraanka cadadiisa ku salaamay
kadibna waxaan leeyahay iimaanka allah in geliyo iimaanka allah in geliyo dagaalku wax wanaagsan ma adduunka waxa la isku faanaa laan dheeranimo Soomaaliyeey ilaa iyo maalintii Soomaali la umay waa isleeynayeen dadka adinka naga reebay caalamku waa naga badan yahay waxaana aan mataqaanaa ku harnay annaga islaynayno ninba walaalkiis soo dilaya ninba wiilkiis soo gowracay ninba qof walba dilaya sidaas ayaan mataqaanaa uga harnay caalamka uga harnay dawladaha dariska naga badaweyna annaga naga badaweyna laakiin dadkooda dhaqaaleysteen maantana yaan mataqaanaa dawlad kasta waxa la leeyahay Soomaaliya waa yar tahay waa lagu soo duulayaa dhulka laga qabsanayaa gaala laga dhigayaa kirshaa laga dhigayaa waa loo talinaya yaa suurageli waxa suurageliyay dadkan islaynaya oo aan eegaynin wax inaba qayma oo aan diin difaacin oo aan dawlad difaacin oo dad guud aan difaacin oo ayagu maskaxdooda inay dagaalamaan kaliya ku borogaraansan tahay hal dagaalee maxaa la kala qaadaa baraagtan anaale iyo baraagtan anaale iyo geedka weyn anaale oo geedku meesha ka tagi maayo baraagtuna meesha ka tagi maayo waxaan ku talinaynaa haddaan nahay golaha agwaaninta Soomaaliyeed in aqligu shaqeeyo oo dagaalka iyo dhibaatada inaad dhaaftaan oo u soo jeesataan sida yacni dawladaha dariska nala ah ay quality iyo tiro u leeyihiin wax hore waa dhaceen walaal ay ku oolweeyeen markaan yaa dalka yaa nagala qaadan yaa diinta nagala saarin war waddankeena aan difaacano war dawladnimada aan difaacano war qarnimadana aan difaacano war dadnimadana aan difaacano anigu marka intaa tala iga taa kulli waxa maqli maysaan oo wax kastoo liisha waxa maqli maysaan inta dhiigga walaalka ku muuqdo hebel ku muuqdo yani waxba maqli mayside waxaan kuwa Soomaaliya kuwa talinaya ku dayda dawladaha naga badan oo naga tirada badan adduunka tira la isku gumaystaa laan gaaba naga dhigteen laan gaab sida wiilkii soo baxay oo dilayseen sida ninkii sharaf laba oo dilayseen sida ninkii walaadka oo dilayseen dhakhtarka oo dilayseen professorka oo dilayseen nin kasta oo wax galaa oo dilayseen waxa naga dhigteen dad ay yaa waxba aan jirin ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada dagaalka iyo dhibaatada dhiig daayska joojiya aan cilmi ku fadhin dagaalamaysan dad ka badan baa jira oo dhulkiina iyo ku haysta iyo diintiina ku haysta taas waxa waaye waxaan leeyahay Soomaaliya ku baraarug wanaaga ku baraarug waxa ilaahay na faray fartoola dhiigga walaalka oo daalinaysa siidaa dal kuma jirtay daay dhiigga walaalka anaga agwaaninaanahay in agwaan dadkiisa islaynaayo oo yani caloosheenna huraysa waxa way niyadana jaban meesha aan ka filayna meelaha hadda ka soo baxaysa war waxa weey 30 sano in ka badan la diray wax faa'iido loo keenay ma la beel kaba adkaato nin kaba adkaado wax la kala adkaado inay litida adigu waqti naga dhaafa laan gaabnimada laan gaaba naga dhigteen inaan yani ma taqaanaa tarano oo yani dawladaha ilbay cad ma hadli karo marka waxaan rabaa Soomaaliyeey qofku maqal mala ilaahay booyaan الله وديك الله كلا بشره الله حق له عابده الله أديك مويه أرنت الصومالي آفا كلا قشاه الله أقبل يهشيس الله آيها مذنبه الله أبي كيف بالنبت الله هايس آمنتي الله شو السوحري